Assalaamu calaykum. Waa maxay jacayl? Jacaylku ma leeyahay midab u gaar ah ee lagu garto? Jacaylku ma qaraar mise dhanaan mise macaan? Ma leeyahay dhadhan u gaar ah oo qofka dhadhamiya ay dhihi karo waan helay jacayl amaba wuu i soo maray jacayl? Haddaba sida aynu wada ogsoonnahay, jacaylku ma lahan midab u gaar ah, mana lahan dhadhan u gaar ah. Midab u gaar ah oo qofku marka uu soo galayo oranaya in midab jaallo ah ayaa ugu soo galay jacaylku ma jiro, mana lahan qaraariya dhanaan oo ah dhadhan u gaar ah. Jacaylku qof waliba waxa uu u soo maraa si gaar ah. Qafi wuu xanuujiyaa oo waxa uu gaarsiiyaa heer oo nolosha uu dhani ka quusto. Qofka waxa uu yiraahdaa jacaylka i soo maray ma jiro, jacayl ka xaraar amba wax ka xaraar oo ka xanuun badan. Waxa uu mar waliba sheegaa in uu ahaa dhamac korkiisa la saaray, taa oo mar uu sugayo in ay ka degto amaba ay qabowdo. Qofka kale ee jacaylka dhanka macaan u dhadhamiyay asigana waxa uu mar waliba fishaa dhamacdaas kulul oo waxa niyadiisa iyo qalbigiisaba ka guuxa. Hadmay ku soo mari doontaa dhamacdaas kulul, goormaad weeyi doontaa qofka aad dunida u jeceshahay? Hankaaga iyo hamigaagu ma sidaad rabta ayuu ahaan doonaa, mase waqtigu waa isbedeli doonaa, ileen waa hooska labadiisa gelin tilmaanta waqtiga. Haddaba walaalkayo amba walaashayay, qof waliba waxa uu raadiyaa jacayl kaa oo farxad siiya, noloshiisana ku dhiiriya in uu gaaro riyo iyo han waliba oo qalbigiisa ku jiray. Jacaylka ugu wanaagsani waa midka aad qof u jeclaataa Ilaahay dartii, kaa oo asagana kuu jeclaada Ilaahay dartii. Qof waliba oo aad u jeclaataa Ilaahay dartii weligaa ma nici doontid, waayo markii hore ayaadba waxaad u jeclaatay rabbigaaga dartii. Qof waliba oo aad u jeclaataa ku meel gaar amaba waqtigaaga ku gaarne waxaad ahaantaa qof kala kulma qaraar iyo dhanaan aad u daran, kaa oo mar waliba qalbigaaga iyo noloshaada gubi doona. Waxa aad abuurataa ayaad biritoole helaysaa. Jacaylka aad maanta ku ciyaartaa biri ayuu kugu ciyaarayaa, waayo jacaylka xaqiiqdiisa saxda ah waa matalka amaba qaabka waqtiga aad maanta lumisaa biritoole ayuu ku soo marayaa adiga oo u ciishoonaya. Jacaylkana waa sidaa oo kale, oo jacaylka aad maanta ku ciyaartaa oo aad lumisaa biri ayuu ku soo marayaa heer aad adiga u oyso. Qof waliba oo qof jeceli waxa uu jecel yahay inuu noloshiisa han iyo riyo, hami iyo yool uu ka gaaro, qofka uu jecel yahana uu ku garab siiyo. Haddaba walaashayay, qofka aad dooranaysid ku dooro Ilaahay dartii, waayo ma nici doontid qofka aad Ilaahay dartii ku dooratay, asigana kuma nici doono, waayo waxaad ku dooratay Ilaahay dartii. Haddaba walaalkayow, gabadha aad dooranaysaay ogow inay tahay gabadh aad u sharaf badan, qiimo leh, waalidna uu koriyay, laguna barbaariyay haybad iyo han, xishood iyo karti, hufnaan iyo dhiiranaan, dulqaad iyo samir. Adiga ha ku ciyaarin oo ha uga dheelin damiirkeeda iyo sharafteeda. U dhowr sida ay kuu dooratay, u ilaali sida aabbaheed iyo hooyadeed, u xushmee sida hooyada, u qadari sida aad qalbigaaga iyo naftaadaba aad u qadariso. Qof waliba oo noloshaada soo maraa waxa uu ahaan doonaa qof taariikhda buuggaaga amaba qalbigaaga gala, balse ma ahaan doono qof aad marnaba ilowdid. Xusuuso, waxaad xusuusan kartaa qofkii kugu horreeyay ee aad jeclaato haddii aad tahay qof jacaylo fara badan noloshiisa ay soo wajaheen. Haddaba walaalkayow, dhowr gabadha aad jeclaataa waayo biritoole ayay waxa ay noqon doontaa hooyada mustaqbalka, ta dhali doonta geesiga mustaqbalka, ta yeelan doontana barbaarin doonta hamiga mustaqbalka, ta dhiirigelin doonta weliba hormarin doonta riyada mustaqbalka. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi